rabiirow sheekadani waxa weeyaan qabyaalada iyo shaydaanka waxaa dhacday laba nin baa oo guri wada degan baa nin jin gala jin markuu galay ninka wuu dhaca qofku markuu dhaco waa qof rafanayo dagaalamayo طبعا waxaa dhacday laba wadaad baa looga yeeray masaajid warbarkaalayo quraan ku akhriya baa la yiri ninkii baa rabiirow quraan lagu akhriyay waa la garaacay dawakan qofkii cabaaday wixii طبعا ama isi haada ama jimbe ha ahaade de ninkii sidii shaabuu lagu garaacay buu waramay alla hebel baan hayay alla idaayay halkan baan galay jaarkaan hayay maxay waan hayay halkaasan ka soo raacay waa sheekooyinka inta badan ugu badan ee dhaca waxa dhacday de ninkii weynaa markuu ka daalay sidoo quraankii ugu waday ayuu kii gacan yaraa ahaa buu ku yiri warbaadna markaa ku akhri de kii waa isaguna ku bilaabay markuu ku bilaabay buu yiri warhebelo warigada warhebelo baan ahay war isku qabiil baan nahay reerkii isagu waxa uu sheegay qabiilka xasan ahay daraan ninkii intuu ka joojiyay garaacistii ayuu sheekhu u dhiibay sheekhi de miyuu naxaya kusii wada ninkan wuxuu uga daayay ninka isku reer baan nahay markuu ayuu ka joojiyay ninka isku reer baa tiina ka daayay ninka isku reer baa tiina ka daayay garaacin buu sheekhi uu dhiibay weyna de sheekhna uu uga sii daray markuu ka yaabay sidoo sheekhu u garaacay ninkan ayuu ku yiri sheekh de waa jaaliyadii ninkii ka daayay asagu sheekadiisii iyo quraanku ku akhriyay wuxuu uga daayay markuu jaaliyada bas isku reer baan nahay ayuu ka dhimo suuq adigu ku sii akhri kii sheekhi weena markuu ku sii akhriyayna ayuu istakeena ku sheekhana ninka isku reer baan buu ka daayay de ninkan aan buu ka dhimay ka xirday adiguna Soomaalidu halka qabyaalad ka mareysay sheekadani ka waramaysa sheekadan kaftanka iyo qosolka rabiirow intaas bay tahay qabyaalada iyo jinka iyo Soomaalida ka waramayso marka de Soomaalidu hadii xataa jinka isku qabiil noqdaan wadada way uga baydhaa oo way ka xidhaan